Xuutiyiinta Yemen ayaa guulo la taaban kara ka gaaray magaalada istiraatiijiga ee Marib oo ah meeshii ugu dambeysay ee dowladda la aqoonsan yahay ee deegaanka ee qaybta waqooyi. AFP ayaa wareysatay saraakiisha militariga ee dowladda taageersan waxayna sheegeen in Xuutiyiinta ay la wareegeen waqooyi galbeed khasaarana uu ka dhashay dagaalka. Horumarka ay ka sameeyeen jiida hore ee galbeedka inkastoo ay duqeymo cirka ay ka geysanayaan isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga una taageerada u yahay dowladda Yemen. Sida ay wararku sheegayaan dagaaladu waxay hadda u sikadeen magaalada Al-Mil oo ku dhawaad 6 kiiloomitir u jirta bartamaha magaalada Marib. Ugu yaraan 65 dagaalyahan ayaa lagu dilay dagaaladii labadii maalmood ee la soo dhaafay oo kaliya 26 ka mid ah ciidamada dowladda taabacsan oo ay ku jiraan 4 sargaal ayaa ila wareegyadu ku soo waramayaan. Xuutiyiinta ee Iiraan taageerto ayaa si dhif ah u soo bandhiga khasaaraha soo gaara muddo sanad ay bar ah. Xuutiyiintu waxay dagaal kula jireen xoogagga taabacsan dowladda si ay u xukumaan dhammaan waqooyiga Yemen. Marib iyo hareeraheeda ee gobolka ku xeeran ayaa halkii ugu dambeysay ee muhiimka u ahayd dowladda dhulka ay hadda maamusho ee waqooyiga. Inta soo hartay waxaa gacanta ku haysa Xuutiyiinta oo ay ku jiraan caasimadda Sanaa sida laga soo xigtay golaha amniga ee qaramada midoobay. dagaalka ka socda Marib wuxuu halis weyn geliyay 1 milyan oo barakacyaal ah wuxuuna halis ku yahay dadaalada lagu doonayo in xal siyaasadeed laga gaaro colaadda Yemen.